soo Puntland waxa ka socota doorasho hordhac oo 3 degmo oo qof iyo codow markii ugu horeysay oo Puntland ay ka bilaabato bal waxay uga dhigan tahay Puntland iyo magaalooyinka kale ee Puntland aad iyo aad baa mahadsantahay Cabdi Qani maanta waa maalin taariikhi ah waa maalin ummadda reer Puntland ay sugaysay runtii waa maalin ay markii ugu horeysay Puntland ka bilaabatay inay dad shacab ay codkooda dhiibtaan iyagoo dooranaya cid ay u arkaan inay masiirkooda ku aamini karaan doorashada 3 degmo waxay tijaabo u tahay inay Puntland ka hirgasho nidaamka dimuqraadiyadda ee xisbiyada badan sidaa daraadeed maanta waxaan dhihi karnaa waa maalin ay shacabku u tahay inay ka mira dhaliyaan hiigsigan ama rajadan shacabku ay sugayeen muddo badan waana maalin taariikhi ah waana maalin u muuqata in laga gudbi doono hanaanka qabaliga ah ee in badan lagu soo dhaqmayay ee runtii Puntland ragaadiyay 20 iyo dhowr sano kadib inaan maanta u dareerino inaan aragno shacabkeena codeynaya inaan aragno Puntland oo talaabo hore ugu qaaday nidaamka dimuqraadiyadda waxa weeyna farxad gelinaysaa kan dhalinyaro ahaan aniga waxa ay ifinaysaa inaan maaragtay maanta mustaqbalka wadanku isbedelayo waxaan rajaynayaa tijaabada 3 degmo markay dhamaato in degmooyinka kale loo gudbo si loo rumeeyo rajada shacabka runtina waa cadqani waa arkaysaa waxa jira dad safaf dhaadheer saaka aroortii xilli hore soo galay sidaan uga jeedna ama baraha bulshada uga daawanano inkastoo aan halkaasna si weerin aan joogno oo joogayaalkaadna laakiin aan rajayn doono insha Allah kuwa degmooyinka dambeena codkeena inaguna sida dadka u dhiibtaan u dhiibano marka dad meelaha marka fiiriso kale waxa laga soo hadlay gareeyay hadda eegtid hooyo umushay arkaysay meesha ku umushay arkaysay sidoo kale waxa arkaysay dad maaragtay dadkan disableka oo dad culiyaama oo xilli hore meesha yimaaday dad xilli waayeelo oo ay ugu dameysay maaragtay muddo inay cod sidaan oo kale arkaan Puntland inay meesha yimaadeen marka waxyaalaha meesha ka muuqda waxyaalaha dareen gaar ah